Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Good morning tiyaashii, good morning millionaires. Dhammaantiin waan idin salaamayaa. Soo u diyaar garooba insha allah maanta aynu qaadano tababarka khuseeya qeybta caafimaadka iyo wax soo saarka shirkadda Tians. So waxaan idin leeyahay welcome to Tians. Ka hortagga wuxuu ka fiicaya runtii iska caabinta. Prevention is better than cure. Waxaan maanta qaadanaa insha allah tababarka la yiraahdo tababarka caafimaadka iyo dhammaan wax soo saarka shirkadda Tians baan ugu gudagelinaa haddii alla idmo. So waxaan idin leeyahay daawasho wacan oo wanaagsan tababarka insha allah marka aan dhammeeno kadib wixii su-aalaha aad qabtaan waad weydiinaysaan, wixii aad tababarka fahantaan sidoo kale waad ila share garanaysaan haddii alla idmo. waxaan ugu gudagelinaa tababarkeena insha allah. So waxaan eegnaa haddaba main factors, meelaha ugu badan aynu xanuunada aynu ka qaadan karno oo naga iman karaan. waxaa ka mid ah wax loo yaqaano pollution ama sunta ama ha ka timaado hawada ama ha ka timaado biyaha aan cabno ama ha ka timaado cuntada aynu cunnaba. waxaa loo yaqaano waa pollution ama sunta. tan labaadna waxaa loo yaqaano waa stresska, ama ha noqdo warwar ama ha noqdo murugo ama ha noqdo fakir fara badan iyo wixii la mid ah. sidoo kale macmacaanka ama diabetiga ka saddexaad ka qaadan xanuunka. sidoo kalena waxaa loo yaqaan heritage ama waa dhaxalka, isagana waynu ka qaadan karnaa xanuunka. afarta meelood ugu saameyn badan aynu ka qaadan karno xanuunada anaga iyo dadka kale oo dhanba. bal waxaan eegnaa haddaba iyagoo faahfaahsan saameynta caafimadeed ee xanuunka sunta loo yaqaano waa fiirin ama pollutionka. sunta waxay ka timaadaa sideedaba 3 meelood: hawada, biyaha iyo cuntada. so haddaba markaaynu fiirino waxa loo yaqaan air pollutionka ama sunta ka timaada hawada, waxaanu ka qaadi karnaa sigaarka, dhuxusha qiiqeeda, qiiqa gawaarida iyo sidoo kale qiiqa taraqa iyo sidoo kale qiiqa ka yimaada shamaca iyo sidoo kalena dabcan waxaynu ka qaadanaa qiiqayaal fara badan oo meelo kala duwan ka imanaya. so haddaba marka ayna gasho oo dabcan waxay galaysaa sankeena iyo afkeena, waxay bilaabaysaa marka inay xirto sanbabada hawada. taasi waxay sababaysaa marka xanuunada wadnaha iyo sidoo kalena xanuunada xagga dheefshiidka laftigeeda, because dabcan waxaa imaanaya wax loo yaqaan iska caabin oo dabcan xididadii sanbabadii iyo wixii dhanba waxay dul fadhiisanaya madow. marka madowgaas wuxuu ka imaanaya waa qiiqa dabcan oo jirkaaga galaba. hadhowta marka dheefshiidkaaga iyo shaqadii wadnaha iyo qaaditaanka iyo gudbitaanka dhiigga wuxuu noqonayaa ciriiri. kaasi waa kan koowaad wey. kan labaadna waa biyaha. dabcan saan naqaano ceelasha biyaha waxaa lagu shubaa dawo kemikala si ujeedkeeda uu noqdo in ay jeermiska disho. jeermiska iyo bakteeriyadii way ka dhimanaysaa, laakiin se suntii waa biyaha kusoo haraysa. suntaasi haddaba marka adigu dabcan biyaha qasabada oo kale aad cabto, waxaa imaanaya marka inay gasho jirkaaga iyadoo galaysa labadaada keliyood iyo beerka. waxaana dhacaya marka in xanuuno fara badan ay ku yimaadaan. ilaahay naguma keene, sida dhagaxa keliyaha oo kale, igfishanka keliyaha, xanuunka beerka oo kale maaragta laftigiisa u imaanaya. sidoo kalena qeybta saddexaadna waxaanu ka qaadan karnaa cuntada. dabcan qudaarta iyo fruitka dabcan beeraha laga keeno, badanaa beeraleydu waxay sameeyaan sunta cayayaanka ay ku shubaan geedaha. suntaasi haddaba marka ay la dhex gasho geedka oo la falgasho, waxaa imaanaya marka in marka dabcan qudaarta iyo sidoo kale fruitka ay kasoo baxaan geedaha oo xilliga gurashada la gaaro, dabcan waxaa la qaadaa iyadoo la geeya dabcan suuqa. so marka aad suuqa ka iibsato adigu waxaa la rabaa inaad si fiican aad u dhaqdid, dhowr jeer inaad dhaqitaan fara badan aad marsiisid si suntaas ay uga baxdo. laakiin se haddii aad khudaarta ama fruitka hadaad soo qaadato oo aad islamarkiiba aadan dhaqitaan ku samayn oo islamarkiiba aad bilowda aad jarjarto aad cunto, calooshaada marka ay gasho waxaa imaanaya marka in xanuuna halisa ay ka dhashaan, sida xanuun kansarka caloleedka oo kale. ilaahay naguma keene. xanuunadaas oo kale maaragta ayaa waxay imaanayaan iyagoo dabcan suntii ay jirkaaga ay galaysaba. bal waxaan eegnaa haddaba saameynta caafimadeed ee xanuunka stresska. xanuunka stresska haddaba wuxuu ka dhashaa koox xanaaqa, wuxuu ka dhashaa warwarka, wuxuu ka dhashaa fikirka badanba. haddaba xanaaqu wuxuu sababaa in murqaha jirka ay qabsan ku dhacaan, wadan garaac saa-ida laftigiisa yimaado, sidoo kalena dhiigga oo xawaare ku socdaba, neerfayaasha qofka xanuunayaan iyo sidoo kalena dabcan waxaa imaanaya in dhammaan neerfayaasha jirka oo dhan inay shaqadooda gaabis ku dhacdo. haddaba xanaaqa haddii uu saa-id noqdo, qofku waxa uu gala marxalad wareer ama inuu koomo galoba. so haddaba waa halis wey. marka aan iska ilaalino xanaaqa iyo warwarka iyo fikirka badanba si uusan xanuunka stresska nagu dhicin. ilaahay naguma keeno.